Soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa doorasho ku saleysan nidaamka xisaabta badan. Guddiga doorashooyinka qaran waxay diiwaangelin ku meel gaar ah siiyeen 30 xisbi. Xisbiga Ilays waxa uu ka mid yahay axsaabta siyaasadeed ee dalka, waxaana hogaamiye u ah xildhibaan Cabduqaadir Cosoble oo u tartamay doorashada madaxtinimada dalka labadii xilli ugu dambeysay. Xubnaha xisbigan oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta yeeshay kulan ay warbixin quseeya xaaladda dalka uga dhageysanayeen xildhibaan Cabduqaadir Cosoble oo ah hogaamiyaha xisbiga Ilays. Cabduqaadir Cosoble ayaa warbixintiisa kaga hadlay isbeddelka ka socda Geeska Afrika iyo xaaladda iminka uu dalku marayo. waxaan rabnaa haddii heshiis Geeska Afrika oo ballaaran la suubinayo waa inuu noqdaa sida madaxweynaheena maalinta ugu dambeysay uu yiri shirka dambe dowladda Djibouti way ka soo qayb galaysaa inuu ka rumeeyaa rabnaa oo ay run noqoto oo ay qayb ka ahaato laakiin annaga ma qaadanayno heshiis iyo taxaaluf iyo isbahaysi walaalaheen lagu dhibaateynayo lagu fogeynayo ma soo dhaweeyno waa inay kaliya ahaataa dowladda kale oo iyadu rabto inay dhinacaas naga soo gashay waxaan rabnaa inaan dhahno ilaahay ka deeqataasito ma sugaysaan haddii ilaahay raado xukuumadda maanta jirto marka iyo hoggaanka maanta jiro inaan u soo jeediyo inay la fadhiisato dadka siyaasiyiinta ah oo ay aaminsan tahay inay xoog iyo sharci aan maaragtay sax ahayn iyo xeer ilaalin la adeegsado oo leeyahay xildhibaanada laga qaado maaragtay xasaanad iyo wax la mid ah ama handadaad ama xoolo ma lagu gaarayo waxay keenaysaa oo dhalaysaa meel xun in Soomaaliya u noqoto dadka Soomaaliyeed ilaa ay hadda sawir badan ay muujinayaan in wixii lagu soo heshiiyay maalin walba la dardaro in sharciga taagan maalin wixii doon la subsado in waxaa maanta taalo in xataa ciidamadii noo dhisnay oo sidii booliiska ah siday u kala dambeynayaan xataa lagu cayaaro oo taliyii booliiska la taliyii gobolka adiga ama marqaada anoo iga marqaada faraha waxyaabaha noocaas oo kale ah waxaan rabnaa madaxweynaha inuu soo galo oo wax ka qabto wax ka bedelo axsaabta siyaasadda uu la fadhiisto Soomaaliya waxay inta ku soo gaartay wada hadal iyo sidee waxyeelnaa xogayaha xisbiga Ilays Maxamed Axmed Ibraahim Goodir ayaa sheegay in dhawaan magaalada Jowhar ay ku qaban doonaan shirweynaha xisbiga Ilays. waxaan rabnay oo kulanka muhiimadiisa ugu weyn ay tahay in marka ugu horeysa inuu iska wareysano xaaladda xisbiga, xaaladda siyaasadda dalku uu marayo iyo iyadoo dhawaan la qaban doono shirweynihii xisbiga laguna qaban doono magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Xildhibaan Maxamed Cumar Ciimoy oo ah gudoomiyaha xisbiga Ilays ayaa dhinaciisa ku dheeraaday howlaha horyaalla xisbigooda iyo waxyaabihii u qabsoomay. waxaan rabnaa oo aanu maanta meesha isugu nimid waxay ahayd inteenaan joogta halkan oo ka soo qayb gashay qadada tan iyo inta maqanba inaanu isu boorino isu sheegno ka wada hadalno howlaha maanta xisbiga Ilays horyaal maanta xisbiga Ilays waxa horyaala shaqooyin adag nidaamkiisii constitutionka ama xeerkii uu ku shaqayn lahaa ee lagu kala dambeyn lahaa ee lagu dhaqay lahaa xisbiga Ilays alxamdulillah wa alama hadii uu inoo soo dhamaaday maanta waxa diyaar ah oo xisbiga Ilays qof kasta meesha uu joogo uu ka heli karaa haddii ay tahay asagoo koobi ah haddii ay tahay software wax walba uu yahay xisbiga xubin kasta iyo taageero kasta iyo qof kastaba oo gacanta loo gali doona hadduu awlaha wada loo ogolaado xeerkii xisbiga ee dastuurka ahaa ee maanta soo islaaday waana kana xisbigu waa diyaar Maxamed Cabdi Naasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.